waxaan maalin aan yeelayni waxa waaye inuu sharci darro Maxamed Cabdullaahi isku dayo inuu meesha ku fadhiyo asaga kooxda ku hareeraysan mandate 4 sano ay haystaan 12 bilood hadda u dhiman asaga baarlamaankan October uu egyahay waxa u dhiman haddaan ku jirno February 8 bilood u dhiman baarlamaankan waxaan rabnaa in 8daas bilood baarlamaanka u dhiman talo la gaaro haddii golahaas ay dhigaan Puntland ama ay beesha caalamka isma wax ka soo baxan falaa alxamdu haddii ka soo bixi waayeen annaga meel ma fadhino istiraatiijiyad iyo qorshayaal ummadda Soomaaliyeed soo gudbi doona runtii oo keenaya in aysan jirin cid tala loo aqoonsan yahay oo sharci darro ku fadhisa annaga marna midaan yeelayna ma waliba hadda anigu Cabdiraxmaan wali xukunka iyo talada ma qabanba madaxweynayaal waxa jooga ayagoo xukunka haysta sidoo asaga yeeli karay laakiin door biday inay talada dhexda dhigaan la tartamo waliba labada inta dhinaca ka istaageen gacmaha qabtay yiri xilkan ku wareejinay hadduu is yiraahdo kuwaasaad ka aqli badan tahay dalka xoog ku haysan kara horta waa nacasnimo waxaan u maleynayaa wax la taliyo horta oo badan oo xigmad badan aniga meesha kuma arkin haddii tol qabto uu leeyahay kuwaas u baahan inay asaga qabtaan runtii oo yiraahdaan dalkan dhibaato hadda ka badan ma xamili karo hal haw in yiraahdo hadday dhicin anaga qaababka asaga qabalahayn runtii waa noo diyaar khiyaaro hadda waxaan ku qasbanaa doonaa aan marna anaga markii horeba aan ka fikirin oo aan rabin in hadda aan ay noqdaan options miiska saaran inay noqdaan imaad doono lagu qasbanaa doona ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga badbaadiyo inaan ku qasbanaano khiyaaraadkaas iyo options inaan ku qasbanaano oo gobolahan ama daqdigan beesha caalamka ka imaanaya ama midaan gudaha Soomaaliya ka imaanaysa hadda Puntland ay hormoodka u tahay iyo dad qabta dawladda ninkan oo talada ka qabta maahane annaga meeshaas nin xigmad leh oo aragti haya oo dalkan sidoo nabad uu ku yimid oo nabad xukun ku wareejiyo ay ka muuqato ninkaas iyo nimanka